soo dhawaada mar kale muuqaal kale muuqaalkeena maanta waxaan ku qaadanaynaa sidaad ku samaysan lahayd ku isticmaali lahayd Gmail. Horey waxaan u soo qaadanay casharkeennii sidaad ku samaysan lahayd Gmail, oo haddii aad u baahan tahay waxaad ka soo fiirsan kartaa casharka linkiga description-ka ayaan dhigay. Sidaad ku samaysan lahayd xagga ayuu yaalaa. casharkeena maanta haddaan u gudagalno waxaan qaadanaynaa qaabkaad ku isticmaali lahayd Gmail. aad fariimo lagu soo dir lahay adigana uu dir lahayd hadday noqoto fariinta mid shirkad aad u direysay iyo mid aad shakhsiyan qof kale u dirsanaysid. yacni siyaabo badan ayay noqon kartaa adiga qaabkaad u isticmaalashada. laakiin page-keena maanta haddii aan ku horumarno waxaan qaadanaynaa Google-ka. haddayna casharkaas aan ku dhufanno waa fariin ina soo dirtay Google-ka. sidan ayuu soo baxayaa. markuu soo baxo qaybtaas ugu horeyso waxaa la dhahaa ajiif. waa inaad iska qalisid fariinta lagu soo diray, waa inaad iska qalisid. qaybtaasna waa delete, oo fariinta markaad aqrisid ama aad u rabin inaad fariintaas sii fiirisid ee ku sii taalo inaad iska deletid. qaybtaas waa inbox iyo outbox allah, waa banaanka inay ku soo bixiso ina markaad fariinta ku dhiftid banaanka ku keento si aad banaanka haddana fariin kale u aqrisid. qaybtaas saddexda dhibic hataa ku dhufana iyadana qaybtan ugu horeyso waxaa la move, waa ina meesha ka qaadid oo meel kale aad geysid fariinta, yacni aad ka reertid meeshaada kadibna aad ku rartid ama aad ku paste gareysid meel kale. qaybtan waxaa la qaybtan ku xigto qaybtan ku xigto waxaa la smooth-kana waxaa waaye inaad fariinta aad waqti kooban, yacni aad iska waqti kooban aadan fiirin. qaybtan waxaa la change label, iyada had saas faa'iido wax saas muhiimad nooma lahan, ka gudbeynaa. qaybtan ku xigto waxaa la dhahaa marka mark as important. mark as important waxay noo qabataa waxyaabo badan, yacni fariintaada markii aad fariinta aad soo furtid, yacni si aad ugu furanto oo kale waxay tahay mid aan aqrinay way ka muuqanaysaa. marka mark as important marka fariinta waxay ka dhiganaysaa marka aad ku dhufatid midaadan aqrinin oo aan furin. tan kalena waxaa la qaybtaas iyo qaybta kale waa isku mid. oo moodka waxay ugu duwan tahay midaan kale. smooth-ka way isku dhow yihiin laakiin waxay ugu duwan tahay waqtiyo badan ayaad mood gareynaysaa. qaybtan waa view light, waa ina iftiinka aad furtid, yacni dark mode haduu ku yahay iftiin ay ka dhigin kartaa. sidaas ayaa u isticmaalaysaa. marka waad ujeedaa shaashadeena way caddaatay. qaybtan ugu horeysa qaybta ku xigtana waxaa la dhahaa print all. haddii aad rabti ama kugu xiran yihiin telefonkaaga ama computerkaaga print, yacni meeshaas ayaa ka daawacanaysaa. print all ayaa la dhahaa. siyaabo badan loo daawacda ayaa jiro. printyada qaab lagu xiriiriyeyna waa jirtaa. casharo kale ayaa kasoo diyaarinaynaa hadda inaan ka hadalno ma rabna iyadana. qaybta ku xigtay iyadana hadda wax saas muhiimad nooguma lahan, oo waxyaabo kale ay qabata ayaa jirto. qaybta ku xigtay iyadana waxaa la report spam, waa inaad fariinta qofka markuu fariinta hadda aad furtid, yacni fariinta tusaale oo kale fariinta hadda ku jirno inaad ka delete gareysid ama report aad u gudbisid shirkadda si ay kaaga caawiso hadduu fayrsi yahay haddii kaleba. qaybtaasna waxaa la help, caawinaadii aad rabto shirkadda caawinaad ugu weydiisan kartaa oo waxyaabo ay kaa qaldamaan, yacni shirkadda markaas way ku soo caawinaysaa. haddii aan hoos u soo daadegno qaybtan ugu reply iyo all reply iyo forward. reply-gaas haddaan ku horumarno waxaa waaye page-kan keliya hadda ku jirno. inta hadda meesha ku jirno waa 3 page oo ka kooban yahay, 2 page oo ka kooban yahay. laakiin page-kan qaybta kuwada reply-ga hal page oo keliya ayay ka jawaabaysaa. laakiin qaybtaas oo reply all ah waxay ka wada jawaabaysaa oo hal mar aad uga jawaabi kartaa dhammaan inta fariimo oo page-kan ku jirto. hal mar ugu jawaabaysaa
marka qaab fudud waaye. haddii saas aad soo dhaadid halaas oo dhan hal mar ayaa jawaabteeda bixin kartaa, oo yacni 2 page fariin lagu soo qoray hal mar aad ka jawaabaysaa bla 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 ayaa ku qoraysaa, kadibna caadi oo u diraysaa qofka asigana jawaab kooban ayuu noqonaysaa. qaybtaas hadii geeska ahayn iyadana waa reply oo qarsan. saddexda dhibacna waxaa waaye waxaa nagu cusub forwardkaas. forwardka waxaa waaye forward iyo add star aa nagu cusub. forwardka waa inaa qof kale uu share garaysid ama u dirtid. add stargaas waa important inaad warqadaadii bashqadaada aan hadda soo furnay bashqadan yacni muhiim ka dhigatid oo meel qaas ay ku gasho, yacni ay kaaga dhuman fariimaha kale ee kaaga dhex dhumin oo meel qaas aad ka raysatid. sidaas ayay kaa caawinaysaa iyadana. waxaad ujeedaa xagga ayay xidigta noo kortay, halkaas ayaad ka arkaysaa. waa kaa xaggaad ay kaa soo muuqanaysaa. haddii aan kasoo baxno marka cashirkeena qaybtaas oo noo soo dhamaaday, qaybtii labaad ayaan u gudagalnay. qaybtaas aad ujeedaan oo magacii uu ku bilowdo ama xarafka uu ku qoran yahay, yacni waa gmailadeedii oo dhan ayuu soo keenayaa. marka gmailadeeda oo dhan ayuu soo safay, yacni haddii inaad arkaysa laga yaabaa waa xogteeda inaad aragti ma rabo anaan u baahnayn. haddayna ka socono qaybta hadda waxaa noo soo hartay oo composka, yacni qaybta hoos qaybtani hoos. qaybtaas horta intaanu gudagalno qaybta hoos meeshaasna waxay kuu fududayn kartaa iyadana inaad ka saartid xidigta oo meel si bashqadii hore oo kale oo kor ka saaran iyadana ay kuu noqoto oo meel qaas ah ka dhigatid iyadana. saas ayay wax ugu tari kartaa oo meel qaas ayay galaan. waana arkaynaa cashirkeena dhamaadkiisa ayaa ku arki doontaa, marka si fiican u daabo. qaybta composkani waxay tartaa iyadana markaad fariinta aad qoraysid, yacni aad rabtid inaad qof kale fariin u dirtid ama email kale ama gmail kale aad fariin u diraysid, yacni any email oo noqdo waad u diri kartaa. hotmail hadduu noqdo, gmail hadduu noqdo waad u diri kartaa. hadda meeshaas xariiqda saaran waa wax ka muuqdo gmailkayga bravo 252 ayaa lahaa oo waxaa soo diray from bravo 252 waxaana loo dirayaa gmail hebel saas ugu qoraya. marka hadda gmailkayga aa geliyo oo gmailkayga kale usama mukhtar @gmail.com, yacni gmailkayga hadda saas uu soo qabtay. kadib qaybtan hoos oo ku xigta oo subjectiga iyadana waa titleka, yacni ciwaanka aad siinaysid waxa aad diraysid. ciwaan waan siinaysaa. haddii aan ku qorano fariin walaaltinimo xambaarsan, yacni fariinta haddii aad ku qortid waa titleka aad siinaysid fariintaada magacay u bixis adiga. laakiin hadda title saas siiyo assalaamu calaykum waxaa ku socoto hebel saas ku soo qoranta. qaybtani waxaa waaye fariinta meesha aad ugu sii faahfaahin lahayd xaaladda ka waran walaal sidee qaar ma ho alxamdulilah. meesha saas kasii dhilaad waaye inaad saas usii faahfaahiye marabi ka soco. laakiin haddii aynu gudagalno qaybta oo buluugta iyadana 3 meel ayaa noo dhiman. fariimo badan ay ku qoran kartaa qaybtaas. qaybta buluugda iyo gudagalno waa marka fariinta saas usoo qoratid oo aad diyaarsatid, kadib waa meesha aad ka diri lahayd oo send ay calaamad oo si wax ina baxay oo kale ay tilmaamaysaa. qaybta ku xigtan waa inaad file ka soo xariistid haddii kuu jiro file, yacni qoraalada kuu jiro ama documenti ama sawiro haddii kuu jiro, yacni midaaratid meesha aad ka soo xariisan lahayd. waa aan hadda sawir soo xareeyay sawirkayga. marka qaybta ku xigtana waxaa waaye inaad Google Drive-kaaga waxa kugu jiro ama internet online-kaaga waxa xogta kugu kaydsaneyd inaad soo baxsatid, kadibna aad soo gelisid gmail-kaaga, kadibna aad saas ku dirtid. meeshaas waaye saad ujeeda hadda Google Drive-kayga soo saaran, laakiin waxa iguma jiro saas hadda wax ma sii qaadanayno. send markaad dhahdid
fariintu waa u dhacay hoos ayuu kusoo qorayo ujeedin sending. weli waxaad naga daawanaysaa channelkeeni Usama Mukhtar. haddaad channelkan ku cusubtahay subscribe saar, waa channel cusub fadlan walaal nala koriya channelkan waxyaabo badan casharo muhiim ah technology ayaa kusoo dirnaa yani kusoo gudbinaa. qaybteena casharkeena dib usoo laabano waa primary iyo all inbox iyo primary social media. qaybo badan ayuu kala saarayaa. all inboxkaas wuxuu ku qabanayaa gmail badan haddii kugu jiraan inaad hal mar wada aqrin kartid fariimaha iyo gmailadaas dhan ku wada jiro. qaybtan primary-ga waa hal gmail markaa rabtid inaad aqrisid, yani gmailka ii saaran oo kale fariimihiisa oo kaliya meeshaad ka aqri lahayd waaye. sad ujeedaan afar in primary-gaas waxa ii saaran afar calaamad, afar ii saaran yani afar fariimood ayaa ii yaalan ayuu ka wadaa. qaybta ku xigtay iyadana waa social media, inaad ku xiriirtid social media-haaga gmail-kaaga. markaad kusoo xiriirsid kadib fariimaha kaaga soo imaadaan meesha aad ka fiirin lahayd meeshaas waaye. qaybtani waxaa waa promotion, iyadana cashar gooni ay kasoo diyaarin doonaa. hadda saas inaan usii qaadan amrabi. qaybtani waa qaybta data soo qaadanay oo ahayd start inaad saaratid xidigta yani haddaad soo saarayno oo kale. hadda meeshaas waxaan ugu tilmaamaa hal xidig laakiin waa laba xidig. waxyaabo qaldan ayaa jiro laakiin ka soo dhima lah. qaybtani waa snooze, haddayd waa soo qaadanay fariinta inaa waqtiga kooban aad iska baangaraysid ama iska xirtid waaye. qaybtani waa important marka waa qaybta muhiim, waxyaabo muhiimka ay ku galaan yani fariin markaad rabtid inaad soo aqrisid oo muhiim ay kula fariinta aad soo aqristid aad daneynaysid aad u baahnayd inay kaaga dhumeen warqadaha kale meeshaad ka fiirinaysid oo meeshaas waxyaabo badan ay ku taraysaa. faa'iidooyin badan way leedahay. isjadwalkan iyadana waxay qabtaa fariinta markaad dirtid, yani fariinta markaad dirtid waqti aad dirtay maana waqti kale ayaa ku programming kartaa. hadda marka aan diro haween ay tahay biri subaxii camal oo kale waa diri karaa oo fariinteeda xilligaas ayaan ku programmeynayaa kadibna xilligaas ay dhacaysaa oo waqti ay cayiman aad ugu talagashay. qaybtan ku xigtay iyadana waxaa waaye outbooks allaha. outbookskaas haddii aan ka hadlo iyadana waxaa waaye outbooks adina drive-ka iyadan waxaa ka hadlano fariimaha aad dirtay kuwa waxaa waaye kugu halaabeen yani aan bixin fariintaasi marka aad dirtay meesha ay galaan meeshaas ay kasoo fiirinaysaa. all emailka iyadana waxa ay tirtaa dhammaan waxyaabihii aad emailadii aad dirto oo dhammaantood ayay soo koobaysaa wixii lagu soo diray wixii aad dirtay dhammaan hal meel ayay ka dhigaysaa oo waad arkaysaa haddayd wixii aan diray iyo wixii lii soo diray dhammaan hal meel isku keentay. qaybtan ku xigtay spamkana waxaa waaye inaad ka report garaysid yani fariimaha qaldan oo fayraska wata iyo fariimahaas meesha aad ay galaan oo aad ogaanaysid fariinta inay xunta in kale meeshaas ay ka fiirinaysaa. wixii meeshaas ku jiro oo dhan waa fariimo fayras wato kadibna waad iska baangaraynaysaa oo waad iska xiraysaa fariimahaas oo ma fiirinaysid. sidaas ayaa kaga taxadiri kartaa taleefankaaga, waana caafimaadka taleefankaaga inaad ka taxadirsid mar walba. qaybtan ku xigta waa bingaas ayadana wuxuu u tarayaa markaad fariinta aad soo delete garaysid ama yani aad iska deleted meesha ay sii galaan recycle bin oo kale waaye. kadib waad kasii dilaysaa fariimahaaga oo dhan yani waa qaab fudud fariintii kaama lumayso. qaybta settingkiis iyadana waxaa waaye inuu soo safo dhammaan waxyaabihii gmailada igu jiray oo dhan inuu hal meel keeno. waad qaybtaas kale waad ugu dari kartaa gmail. halkaas waxaan qaybtaas waad ugu dari kartaa gmailka.
halkaas waxaa noogu eg cashirkeeni sidaad ku samaysan lahayd Gmail. fadlan video hadaad ka heshay like saar, hadaad ku cusubtid channelkeena kusoo biira. channelkan waxaan kusoo gudbinaa cashir technology mar walba. wassalaamu calaykum.